Assalaamu calaykum kusoo dhawo channelkayga Modern Somali Food. Maanta waxaan idin la wadaagayaa cunto aad u qurux badan. Waa sandwich laga sameeyay lagu daray hilib, waa pepper steak sandwich ayaa la yiraahdaa. Waa cunto aad u fudud, casho ahaan ama qada ahaan ayaad u isticmaali kartaa. Intiina fiidiyowgeena guda galin waxaan ka dalbanayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelkayga soo booqato inaad subscribe saartid. Haddii kale channelkayga ku xidhan tahayna fadlan fiidiyowga like saar. Share-na asxaabtaada la dhig, comment-na ka bixi. Fiidiyowgeena maanta si aynu u sameyno waxa aad u baahan tahay waxyaabaha soo socda. Waxa ugu horeysan maanta idin la wadaagayaa waxa weeyaan xamar, sidoo kale curry powder, barbarooni 3 midab oo kala duwan ayaan isticmaalayaa, green, red and yellow. Sidoo kale milix, waxaad kaloo u baahan tahay toon. Sidoo kale waxa weeyaan hilib, dabcan filfil iyo basal. Roodhida waxaan isticmaalayaa roodhida diyaarka ah. Waxaan bilaabayaa imika cuntadeena inaan jarjaro ama inoo diyaariyo hilibka si yar oo dhuudhuuban ayaad u jarjaraysaa. Waxay kaa caawinaysaa inuu hilibkaaga hore u bislaado, waqti badanna una kaa qaadanin. Marka imika waxaan doonayaa inaan hilibkayga marinate gareeyo. Waxa aad samayn kartaa subaxdii intaan aqalka ka bixin ayaad sii marinate gareynaysaa. Hadhow markaad soo noqoto danahaaga soo dhamaysatid, dukaanka hore ka soo martid, roodhidaada diyaarka ahayd soo qaadatid, hilibkaagii oo kuu diyaarsan ood sii marinate gareysatay ood xawaashadiisa u sii dhamaysid aad hore u samaysanaysaa. Maasha Allah tabaaraka raxmaan, waqti badanna kaa qaadan maayo. Qado ama casho wixii aad doonayso ayaad u isticmaalaysaa. Marka aad marinate gareynayso waa inaad si fiican isku dhex gelisid. In yar oo filfil ayaan dusha kaga sii darayaa. Filfishan waan jecel cuntada markaan karinayo, badanaa filfil iyo xamar iyo huruud waxyaabaha ugu badan aan isticmaalo weeyaan. Imika waxaan guda galayaa inaan cuntadeena sameeyo. Dab yar oo khafiif ah oon xoog u kululayn ayaad ku shiilaysaa hilibkaaga. Haddii aad dabka ku badiso hilibkaasi uu kaa gubanayaa, horena uma bislaanayo, hilib qarfado adag ayuu noqonayaa. Laakiin waxa muhiim ah inaad dabka ka gaabiso si cuntadii ay si fiican isku dhex gasho, dhadhankeeduna hadhow tolo u macaanaanaya. Basashaydii iyo hilibkii markay isku kala dhex galaan yara bislaadaan, waxa aan ku darayaa 3 midab ee barbarooniga ah ee soo jarjartay. Daa'iman anigu cuntada markaan sameynayo waxaan jecelahay midabo kala duwan oo vegetable ama khudaar inaan ku daro, waayo indhaha ayay u fiican tahay, aragga ayay u fiican tahay, cuntada way ku soo jiidanaysaa. Xataa markaad cuntada sameynaysid way kuu qurxinaysaa iyo xamaasad ayaa kuu galaysaa ama cuntadaas waxaad jeclaysanaysaa inay intay ka bislaanaysa aad sugtid. Waxa aan sameeyay qoraalka dusha ayaan idinku soo qoray screen-ka isagoo English ah iyo isagoo Soomaaliya, just in case dadka qaarkood haddii ay aan hadalkayga yara dedejiyo ama ay fahmi waayaan siday shaashada uga arkaan. In yar oo liin dhanaana iyo in yar oo basbaas ayaan ku daray. Basbaaska haddii aanad jeclayn oo caruur cuntada cunayso fadlan ha ku darin, waxyaabo kale ku bedelo. Roodhida noocan ayaan isticmaalayaa. Hadhow toole waxaan dusha kaga dari doonaa sauce. Badanaa anigu sauce-ka waxaan isticmaalaa chili sauce oo weliba nooca aan aadka u kululayn ah iyo burger sauce. Laakiin waxaad isticmaali kartaa wax la yaalo wixii kale adiga dookhaaga ah ama gurigaaga yaala. Muhiimaddu waxa weeyaan wixii adiga dookhaaga ee ku cajabiye ee dhadhankiisa aad taqaanid inaad isticmaashidun. Cuntadani maasha Allah waa cunto aad u fudud. Saad horeba uga barateen channelkayga anigu waxaan jecelahay inaan soo geliyo cuntooyin fudud oo waqti badan qaadanayn. Badanaa dadka aniga channelkayga ku xidhan waa dad shaqeeya, dad arday ah, rag iskaabula ah ama dumar hooyooyin aad u mashquulsan. Marka badanaa waxa iga codsadaan ama message-yada la iga soo diraa inaan idinla soo wadaago fiidiyow cuntooyin aad u fudud oo waqti badan qaadanayn. Haddana caafimaad lahoo oon ahayn cunto badan oo saliid iyo waxaas dhex yaalo. maadaama imka bishii ramadaan ee barakeysnaydna inoo bilaabmayso Ilaahay nabad ha inagu gaarsiiyo
cuntooyinkan oo kale waxaad ku bedelan kartaa xagii aad bariiska iyo baastada ka cunaysay, especially dadka qurbaha jooga ee saacadaha badan soomaya ee waqti yar oo kooban afuran, aad ayay u anfacaysaa. cuntadeena quruxdaas ay soo baxday, waxaan leeyahay allahuma baarik lana fiima rasaqtana waqina cadaaba annaar. ilaahayow inta haysatana u siyaadi, ilaahayow inta aan haysanaa iyada oo siyaada oo ka fara badan intan sii. aad ayaad u mahadsantihiin inta aad i daawanayseen. fiidiyowgeeda inta ku xiga inta aynu ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya, naftaada adaa hoggaansha, adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye. kun haybood noloshu weeye, kun hawlood baa ku xeeran, kun bay hakisaa dhalaa.